soddon sannadood cid uu meel fadhido ashkhaas uun iyagu baasboorto meelaha warwareegaya ay uun muxuu ahaa intii luqunta marada ku duubteen ishagu wax iska sheegaan oo waxaas uu noqdo wax dadku ku sheekaystaan laakiin waxa xaqiiqa ah shacabka deegaankani inuu go'aansaday inuu wax la qabsado dadweynaha Itoobiya marka cidda rabta in arrintan naga kala tuurto ee rabta in halkani ay noqoto xarun siyaasado kale isku hardimaan khilaafaadka ka dhex yimid dalkeena iyo dalal jaarka cid Soomaalinimo naga sheegan karta inay jirto geeska inay ku nooshaa ma qabo haday dhaqan noqoto haday luqad noqoto haday taariikh Soomaalinimo iyo halgankeed noqoto mid calanka deegaanka la bedelaya waa been waan nidi magaca deegaanka la bedelaya waa been caasimadda deegaanka qowmiyad kale lagu wareejinaya waa been wax aqli caadi oo fayooba aqbali karana ma aha kasoo fuli kara ma wax hogaaminta maanta deegaanka joogta ee iyadu sabab u ahayd waxan inuu yimaado calanka in la soo celiyo magaca in la soo celiyo Soomaalinimo ku dhawaaqday sidii Soomaaliyeed ay isugu timaado magaalada Jijiga ku dhawaaqday waxay sameyn kartana ma waa la ogyahay marka su'aashu waxay noqonaysaa maxaa propagandooyinkan iyo buuqan hadda soo nooleeyay hadda waxa soo nooleeyay waxaan ka soo cusbaanaaday geeska arrimahan la xiriira khilaafaadka ka dhex yimid dalkeena iyo dalal jaarka ayaa soo xoogay marka waxa socda barnaamij la rabo in siyaasadaha laga biyadiiday geeska ka jira xudunta ay ka qaraxda ay deegaanka Soomaaliyeed noqoto oo deegaanka Soomaalidu uu ka falceliyo arrimaha oo dagaal ka bilowdaan dadyo badan oo Somali nationalist isku tilmaama oo bartilmaameed ka dhiganaya inay dadka deegaanka jooga maanta ay kiciyaan oo ay yiraahdaan arrimaha soo socday ka hortaga ayaa jira Soomaalinimada laftigeeda laga hadlayo Soomaalinimo iyo siyaasad ahaan sida loo kala maamulka lagu kala jira waa inay cadaata anagu Soomaali baan nahay waxaan u maleynayaa cid Soomaalinimo naga sheegan karta inay jirto geeska inay ku nooshaa ma qabo haday dhaqan noqoto haday luqad noqoto haday taariikh Soomaalinimo iyo halgankeed noqoto midnaba cid naga sheegan karta ma jirto waana la ogyahay laakiin maanta waxaan u aragnay dantanadii iyo maslaxadanadii dalka Itoobiya ee ka tirsannahay inaan horumar dhaqaale iyo horumar siyaasadeed iyo horumar amni ka samayno iyo shacabkana aqlabiyadiisu aaminsan yahay durbaanka marka la garaacayo een ka ahayn ee ka kacay leeyahay cidda ka kacayna waa cid markii aan ka kacnay aan lagu taageerin bal haday noqoto nabad tilmaameysatay anagu aanay meeyno shacab Soomaaliyeed oo meel inuu arrintaas sameeyay maamulada sameeyay waa noo kala soocan yihiin maamuladii xumaanta dadkana ay ku sameeyay iyo shacabkii Soomaaliyeed balaadna ee ilaa iyo maanta noo arka dad walaalahood anagu aan u aragno way noo kala duwan yihiin noo kala soocan yihiin mas'uuliyiintii waxaan ogaa ku hadlayay u raaci mayno oo oran mayno maamul baa nagu sameeyay laakiin waxa xaqiiqa ah shacabka deegaankani inuu go'aansaday inuu wax la qabsado dadweynaha Itoobiya tartanka ka dhaxeeya deegaanada dalkana inuu qayb ka noqdo go'aansaday barnaamijka noocaas ah nagama anfacayso maanta in la isku dawafuro siyaasadihii geeska dalalka ku jira ay ku jiraan Kenya Soomaaliya degan waa Kenya Soomaaliya way ku baraareen wasiiray ka yihiin nolol bay ku haystaan muxuu ahay waxbarasho ku haystaan aqoon bay ku haystaan annaguna inaanu dalkan ka tirsannahay rol noocaas ka ciyaarno ayaanu haynaa wadadeedii haynaa marka cidda rabta in arrintan naga kala tuurto ee rabta in halkani ay noqoto xarun siyaasado kale isku hardimaan annaga nagama fushan karto deegaanaha haddaan arrinta aad noo fulinaynin Soomaali matiid hadii la yiraahdo annagu Soomaali baan nahay Soomaali waxaanu nahay asala hidii baan ku nahay dhaqankii baan ku nahay siyaasadii baan ku nahay waxaanu u halgamaynaa maanta ee ilaalinayna waa luqadda Soomaaliga waa dhaqankii Soomaalida dhaqanka aan Soomaalida ee noocaas ahayd siyaasad hebilaayo hadda ila fulin weydo matiid haday noqoto arrintaas arrin aan dhigeysanayno ma noqonayso ka soo goy shalay tole ururadii dagaalamay ee xabadda deegaanka riday waxay ka dagaalamayeen dulmi waha Soomaali gabdhaha naga lagu sameeyay wiilashana la xansuuqay dhulka naga la boobay dil baan lagu hayay Soomaali maamuladii ka jiray dalka Itoobiya Soomaali saadaraadid sababtaan u leenahay xaq bay ahayd in la dagaalamo oo la iska celiyo waxay ahayd maadaama dhibsaas anaga nagu dhacaysay maanta dhibaato noocaas ma haysato waayo dadka la dilay
Soomaaliyeed deegaanka Soomaaliya ku nool maanta waa ayo dadka tacdiyada lagu haya waa keed dhulka la boobaya deegaanka Soomaaliya ka tirsan marka propaganda laga tago hal ayo waxaas masiibooyinka shalay ina soo maray maxaa maanta la inagu yeedhaya leeyahay ku dhacaya haday tahay mustaqbalka ay ku iman doonaan oo ay ku soo socotaa raganwadii shalay ba waxaan ku hor istaagni ee shacabkanagu uu lahaa maanta uu leeyahay laakiin masiibo aan la gaadhin iyo waxaan jirin maanta in maartay la kiciyo oo dadkanagu lagu galaafto diyaaru mani waxaan aaminsanahay marka waxa hadda soo nooliyay propagandooyinkaasi inayna ahayn xogta oo lahayn wala ka in la rabo dadka in la abaabulo oo la geliyo nacayb nidaamka ka jira ka taliya deegaanka iyo nacayb dalka ay ka tirsan yihiin labada nacayb oo isbiirsaday marka in lagu kiciyo jeeda ayaa socota marka taa laga tago waa been abuur caadi ah propagandooyin caadi ah oo been weeyaan calanka deegaanka iyo caasimadda deegaanka iyo magaca deegaanka way sugan yihiin waxa wax ka bedeli karana national dialogue shaqo kuma laha national dialogue waxa laga hadlayaa ama wada xajoodka qaran wixii Ethiopia naga dhaxeeya laga wada hadlayaa wixii inagu deegaankeena baarlamaan iyo dawlad buleeyahay baarlamaan iyo dawlad hadda dhisan qorshayaal noocaasi uma yeelan aragti noocaasna ma qabaan cid la wada bedelay hadina iyadu u soconiyay bedesho ana waxaan u arkaa in iyagu rabaan inay bedelaan hadina iyagu u soconin oo iyagu aan lahayn anaga bedelayne anagana taageera hadina lahayn oo iyadu aynu u soconin oo marsiyo ay ka dhiganin nidaamka maanta jira waxaas shaqada kuma jiro aad buuna maartay uga fog yahay fikir noocaas marka taa insaal loo ogaado ayaa mid waxa hadda soo noolayay arintaasina waxa la rabaa kacdoon in la abuuro kacdoon kala abuurayna waa inuu noqdo mid ku salaysan nolosha dadkanaga waa in la yiraahdo siyaasiyiin waa la idin xaqira waxa la idin ku xaqiray waa in la yiraahdo tacadigaas ay idin haysta waxa ay idin ku socdo waa in la yiraahdo dhulkaas la idin ka qaatay halkaas ku yaala waa inay cad tahay waa in maamul iyo shacab iyo odayaal cid walba aan isla aragno isla taaban haddii wax noocaas meeshii miiska yaalaana halgan qori waxa ka horeeya halgan qalin baa ka horeeya halgan siyaasadeed baa ka horeeya halgan muxuu ahaa farabadan oo noo banaan oo siyaasadeed oo dalka aan khayraadkanaga iyo noloshanaga iyo wixii naga khaldan ku xasilisan karno ayaa jira maanta adduunku sidii hore ma marka arintaasi runtii arin dadka aan rabo inay ka waantoogaan kana fijina way ka fijigan yihiin ilaa hadda saameyn ma keenin waxaas 6 sanadood baa waxa la akhriyay dhiilooyin aan jirin balaayo aan jirin la akhriyay laakiin wax ma dhicin waxa u dhici laayihiin maadaama waxaas wax xaqiiqo ku salaysan uu ahayn maalmo kadibna la ogaanayo inuu been yahay cidda wada laakiin kolba wax cusub ay soo alifto kama caajisayso shacabku laakiin taxadar ka sameeyo hadii wixii shalay la sheegay been noqdeen kuwad ay gal sheegayana waynu u joognaa ay been noqdaan marka in la taxadaro cidda beenta sheegaysa maalin walba la yiraahdo ruuxii hore sheegteenba aw beentii hore in la timirtii hore double waa in la yiraahdo beentii hore double waa in la yiraahdo oo la challenge garay